shir muddo 3 bilood ka socday deegaanka Deefo ayaa la soo gabagabeeyay iyadoo beelihii ka qayb galay shirkaasi ay sheegeen in dhammaan beelaha Soomaaliyeed ay ka soo jeeda gobolka Hiiraan ay mas'uuliyad ay ka saaran tahay waa xaaladda ammaan iyo waliba in horumarka deegaanada iyo waliba guud ahaan tan gobolka Hiiraan ay ka wada shaqeeyaan sida ay warkaan ay ku eegayso wariyahayaga Luul Xuseen Cilmi. deegaanka Deefo ee gobolka Hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyay shir wada tashi ah oo looga hadlayay samata bixinta iyo aayaha dadka wada daga gobolka Hiiraan. shirkan oo la sheegay inuu socday muddo 3 bilood ah ayaa waxgaradkii iyo siyaasiyiintii ka qayb galay waxa ay soo dhaweeyeen go'aamadii ka soo baxay. qaar ka mid ah odayaashii dhaqanka ee ka qayb galay shirkaasi oo maanta ka hadlay gabagabadiisa ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan go'aamada shirkan ka soo baxay isla markaana midnimada dadka reer Hiiraan ay gacan weyn ka geysan doonaan. muddo 3 bilood iyo dheeraad ayaa halkan shirka ka socday gobol nabadeed ay ka fidsaneeday taasoo goobjoog aan u ahayn intaasna aan ugu baaqnay walaalaha reer Hiiraan oo ahaa 14 beelood 13 beel kamid ah ayna hadda xaadir ku yihiin 12 beelood taasoo alla mahadiis in ay kaga hadlaan kala tashadaano samata bixinta iyo ka talinta aayahooda gobolka Hiiraan. mar haddii walaalaha reer Hiiraan shantii qoloma iyo reer Hiiraan ay soo gurmadeen Deefo 3 bilood wixii la soo waday 5 beri ay maanta gabagabaysanayeen oo farxad ugu dhamaatay waa qaali magac baa loo bixiyay golaha samatan bixinta iyo badbaadada ay ka talinta gobolka Hiiraan ayaa loo bixiyay. kan dibka wada waxaa la leeyahay walaalow joog iimaanka Allah ku galsho waxaa loo aasaasay inuu kala badbaadiyo dhiigga reer Hiiraan. waxaanu soconaa xuduudaha Hiiraan oo dhan meel kasta oo dhibaato ay ka jirto waa tagaynaa. jeclahay shacabka reer Hiiraan inay ku wada noolaadaan reer Hiiraannimo naguma filna qabiil naguma filna maxaan kuu sheegaa qolo ana anfacda dawladda caadila iyo reer Hiiraan ana anfacda Hiiraan baa na anfacda ma anfacdo maxaan kuu sheegaa wax la yiraahdo reer hebel ku tuyo ana anfacaya ma meeshaan maanta waxaa iskugu yimid dadkii ku dhaqnaay gobolka Hiiraan qabaa'ilada iska koobnaay 25 sano oo dawlad laan lahaay waraaba cunay reer Hiiraan waraabihi cunay reer Hiiraan inay ka tashtaan ayaa go'aankeeda meeshaas ka soo baxay. Luul Xuseen Cilmi.